cadaaladda iyo daryeelka maanta halkan waxaan ku qabanay shir jaraa'id waxay la jooga halkan xildhibaanadii xisbiga UCID ee geliyay maskaxdooda maankooda iyo hantidooda bedeliyo codkooda wuuna la og yahay maanta inay yihiin kuwa xisbiga uu ku soo baxay waxay doonayaan inay xildhibaanadaasi iyo anuguba aan ka hadalno arrimo quseeyo oo xildhibaanadii xisbiga nooga soo baxay maxaa tolay iyo waxyaalo ka yimi xaggooda oo idin ku khasbin oo xildhibaanadii labadii xildhibaan ee ku jiray waiting list ee sugayay labada xildhibaan ee maanta laga hadlayo iyo xildhibaanadii kale ee dhigooda ahaa oo inay u fahansan yihiin ama ay tahay inay yihiin dad wax ka wada maqan yihiin isku xuquuqa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان بيامنه كنا عضينه عرفتي بالبركة علي صنف جيه رد ويا قديسي اللي شغل ما أنت مدلح بالوضع تاسوك بالناس بشي استغالات كذا لبعتين كذي اللي بدي يكون يصدح يصدمن كي تاسوك اللي ودوجه سبرة رأي حس بجواب بحين وقناة ديران الحاكم في كل مياه عرفت هذه الحكومة بدها كريه حيثي ما يركي مقالة بربرا عبد الشكور عدين يحل لبانك وعد فتسن عبد الرشيد الله يلاحظون أنكو عن لباسك لهم هين حماننا وهين شرفنا هين نقام مضنايين حل لبانا ضيدي نوقصوا بحي وعد يقولها النوتقي ما يركي عبد الرشيدها حير كاستي كتغي المركة غريب إمي كانوا حي بوس فسكرا يتفريانا أي حسب قولي هاي كوبنيين حير كاستات أي كوبنيين ما دام هو حسبي عديستين هنا يكبحين عديمة بوحال الله هيو حفلة الله قبطي حفلة سيدة الله سوء أبابولي ويني ده إن حسب الدولان لو سوق عضي ماشي كم مغطر الله كيسين وقدومي حسب الحاكم كسو قيب قلي وقدومي كحيين كي قوها برلمان كسو قيب قلي يسوقوا شرعي تشنتية خير ركي وسميه ماشي أيالان اللي بانا قليات في البرلمان كي كسو قيب قلي واللي بقى حيرك أي سواء يعني ماشي علي ما إسلامناش كافيين وسيرو ولما كوي قلتون كواونا حاجة من الحسوية أرلينك الكووها أي ماشي مرياني كسو قيب قلان سيدا درادي هذا اللي راح يسوق دعوه وقت بيه كمشي قلان ديوان قليسة على هذا مرة مهارة قلت ديوان قليسة وقت بيه كل الدور بيتها اللي قلت سعودة حالته دوات تمر في السود البدلي فيه ديوان قليسة مدحيلة كيه دوات تيدا معطي حير باقي يحيي عدة أود كيس كان اللي قادش الحياة دي ذلك واحد قراب برلمان كمشي قلانك دور الشوينك ورقة لوجدي ورقها يهور يلا مكهورتين يلا ورقي كوميشن كلوجدي يكوي يكسو جوابين يكوي ديوان قلت مركي هور اللوجدي لا أي أنت بس الرحية كنت ديوان قلت ورقة كسرة تصور شتان تاسنو وتاسو كوميشن كقرن كجمهورية الصومال لان يدور شبه أيه ولا كسرتها لا بضبع وحكسوا بحي أو وافقسن ما ورن كريه والمشر عيد ذلك قرملا ما ورن كريه لكن waxaan filayaa in meel dalkiiba uu nin waqdo ma siiraan leeyahay oo loo hagramayo cid walba loo hagramayso madaxweynaha digreeto soo saaray in lagu oranayo madaxweynuhu digreeto maayado ku magacaaba madaxweynaha digreeto soo saaray lagu oranayo commissionkii soo waraaqdiisa ku caday soo qoreen madaxweynuhu digreeto uu soo saaray oo diiwaan gelin u korriyay ayaa arrintan naga hor taagan oo kiiskeeda qaadi mayno inay ku jawaabaan ayaa ayaan daraa oo ay noqotay شرعية دي ذلك مدحوينات شمرات سومالا أحمد سيراي موح رالك كان وبنبحين شرعية ذلك السلاح يساقوا أركي لو بربوريو وإسنا كل بدي يريتو صوت سارة وكتها غيرها يا أرنتها مدحوينة وحنا كلنا هاي شرعية دي ذلك حاضية إسلام وسيسا عطا والله لا مدحوينات يريتو صوت سارة دي أنا ما قرن من الشرعية أكفر دي لاي نقوني تأرنتين وحد كتها مدحوينة وشرعية ذلك ويا لا شرعية ذلك إن loo kala dambeeyo oo sharciyadu siday tahay la ilaaliyo oo xuquuqda muwaadiniinta la ilaaliyo ayay danteenu ku jirtaa garan maayaan xaalad soo noqon sidii sharci darrada soo sii jirto day kulli hada kulaha waxa iga dambeeyay xildhibaanada kalena way hadi doonaan anigoo Mustafa markii hore waan magacayga ka tagay dadka kale waxaan ka tagana ku dari doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa maanta cad oo maxaa ay dacwadana cadaynaysa 8 bishii 9aad berbera ka dhacday laba mudane oo xildhibaana oo ka soo baxay xisbiga UCID ay ugu yiraahdeen waxaan ugu wareegaynaa xisbiga kulmiye
arrintaasi iyo sida xisbiga kulmiya ugu diyaargarooba xafladaha loogu qabtay ee looga soo qayb galay waxa ayna tusaysaa xisbi kusoo duulay. taa macnaheedu waxa weeyaan xisbulxaakimkii iyo xukuumaddii jirtayba in ay maanta arrinkooda yahay dimuqraadiyaddii iyo kala dambayntii iyo nidaamkii iyo ammaankii jamhuuriyadda somalilan ay ku faanaysay ee ay kaga tilmaanay mandaqadan aynu ku nool nahay africa dhammaanteed iyo afrikada bariba. maanta haddii aanu nahay xisbiga ucid arrintaas waa arrin xisbigu ka midaysan yahay oonu qaadan karayn. haddii siday tahay loo meel marin waayana macnaheedu wuxuu noqonayaa inay somalilan been caalamkana u sheegayso iyaduna isu sheegayso wax dimuqraadiyad oo ka jiraan aanay jirin, axsaabtuna ay been tahay. waanaan iska laabi doonaa. madaxweynena ma jiri doono, wasiirna ma jiri doono, agaasimana ma jiri doono, musharax xisbina ma jiri doono. waxa oo siman oo aan waxay ku kala duwan yihin jirin. taana dee waynu garanaynaa waxa ka dhasha waxay yihiin oo waxaa tusaale inoogu filan jaarkeenna waxa ka socda maanta muqdisho ay la deglaaday. halkan aynu kusii soconnaa waa halkaas oo kale ee aan rabay inaan la hadlo waa xukuumadda iyo commissionka waxaan leeyahay oon mar labaad ugu celinaya waar afar ugee waa 8 hana odhanina waa 13 sharciguna siduu yahay u mara yaa xeerka ku timaadeen xeerkiisii ayaa waxaan waajibinayeen. maanta inaad ma tidhaahdaan caynkana dee waxaan u malaynayaa malaa waxay idinku dhiiri gelinayaan oo tidhahdaan shaksi ayaanu dalkii dhammaan siisanaynaa. waxa idinku dhiiri gelinaya waan u malaynayaa guuldarradii qaran ee aad doorashadii deegaanka keenteen markii maxkamada laydinku horkeeni waayo dembigiini laydinku qaadi waayo ayaad maantana tan ku soo celisa. annaga waxaanu ka taaganay haddaanu nahay waiting listkii degmada berbera ee xisbiga ucid libaax 2 raqood lagama wada kiciyo. arrintanina arrin aanu qaadanayna maaha. 6 biloodna waxaanu eegaynay waa muxuu ahay qaynuunka iyo sharcigu bal inuu wax meel maray. inta haddaan intaa kaga baxo waxaan ku soo gebagabaynayaa oon halka fadhiin uga diraya international community-ga iyo qolooyinka donaliska la ydhaha ee muxuu ahay qaaranbixiyaasha somalilan wax ku darsaday iyaguna qaran buu rabaa. shalay waxa ka muxuu ahayey roonaaday dadweynaha oo qarannimadooda iyo nabadgelyadooda la ficladii